meesha aad joogtaan tababarka aad qaateen tiradiinna tayadiinna iyo degmooyinkii gobollada aad kala timaadeen intaas waxay tusaale u tahay inaad guul aan ku socono maanta halkaan markii intiina hore lagu daro 300 santiga yimid kun baa isku gaari doontaan haddii lahayd dowladdu waxay diyaar u tahay inay idin diyaariso laga bilaabo meesha ugu siirada ugu hooseysa ilaa 100% la gaaro waxay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya taliyaha xoogga iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu cid walba waxay diyaar u tahay inay idin diyaariyaan oo idin qalabayaan oo idin tawjiihiyaan oo aa wajahdaan cadow waxaanu diyaar garoobaynaa ma naqaan waxaanu diyaar garoobaynaa waxaanu diyaar garoobaynaa degmooyinka la haysto in la xoreeyo oo cadowga laga xoreeyo ilaa laga gaaro meesha ugu dambayso qofka ugu dambeeya laga saarayo waddanka waxaanu diyaar garoobaynaa waddada dheer aragteen oo ka bilaabata halkan ilaa iyo muqdisho inaan furno waan diyaar garoobaynaa waxaan diyaar garoobaynaa degmooyinka ugu horeeyaan xarar dheere aalbuur aaldheere inta la haysto degmooyinka dhulkaana waxaan rabnaa annagoo sidaanoo soconna oo baabuurtana waa inaan waddada marno aan ka galno warshiikh iyo cadale xamar diyaar manaa muhiimaddu waxay tahay nin lagu seexdo ha seexan wey shacabka Soomaaliyeed ee lagu haysto deegaamadaas cidda ay sugayaan waa annagoo kaliya waa idinkoo kaliya cid kale uma maqna cidno ceelna uma qodna waxa weeye dadka la rabo maanta ragga u ah oo u taagan ama gabar u ah ama oday u ah ama wiil u ah waa inteena ma malayn kartaan dadka maanta deegaamada jooga oo xornimo haysan imise culays haysta imise waxaan loo sheegaa kuwa ilmahooda laga qaatay waxaan loo sheegaa kuwa inta ilmihii ka carareen leeyahay adiga laftigaada ilmihii keen waa lagu xiraa oo qofkii xiran yahay waxna ma qaban karaan bareeg buu lahaa guri buu lahaa kama qixi kara meel la maadi karo hooyo waa da ma kici karto waxay leedahay meesha ay dhaafin siina kor ku haystaa neefka soo kaca uu ka qaadana waxaasoo dhan dadka ka dulqaadi lahaa waa annaga awooda ay tahay maantay waan u taagnahay adinku tababaraneysaan annaguna aan u qabnaa inaan dadkeena ka xoreyno shabaab jexso ikhwaarinta haysata deegaamada ay haystaan inaan ka xornaan rabno haddii lahayd kan in ku soo biiro dugsiga ku soo biirana garabkiina ku safan doona hadii la helin bari oo ugu soo horeyso markii uniformka waxa la galiyo waxa imaan doona diyaarin lahayd ciidankani way imaan doontaa hadii la helin waqti dhow waxa dir rajeenaya caafimaad iyo guul iyo niyad wanaagsan xaqiiqatan qofku wuxuu ka socdaa waa niyadda maahan ka soo qaad lacagta kale maahan wax kala diin ma waxa la sheegay qofku wuxuu ka socdaa waa moraalkiisa waa maanta moraal baa haysaan waxaan rajeynayaa inaan moraalkaas annaguna aan moraalkiina jabina aan moraalkiina hore u qaadno oo aad heshaan qalabkiinii oo aad heshaan wax allaala wixii cadowga aad la hortagi lahaydeen waa maasantii يا القرو استاك